dhammaan dadka kala duwan mas'uuliyiinta kala duwan ee degmada Sheekh haday tahay duqa degmada haday tahay duqa degmada Sheekh haday tahay golaha deegaanka haday tahay mas'uuliyiinta iyo dadka kala duwan ee degmada Sheekh haday tahay madax dhaqameedka cid kasta magaceeda iyo maamuskeeda ku salaamayna iyo xilka ay hayso ee dhaqanka iyo degmada uu hayso masoo koobi karay intaanu maanta faraxsanahay inaanu halkan idinku nimaadno degmada Sheekh farxad weyn bay noo tahay sidaad sheegteen safar dheer baanu ka nimid oo aad ogtihiin safarka dheer runtii waa mid aanu ku faraxsanahay waa mid guuri ka soo hoyatay safarkayaga oo ka bilaabmay degmada Oodweyne waxaad la socoteen in maayirkii iyo maayir ku-xigeenkii degmadaasi ay si toos ah ugu soo biireen xisbiga kulmiye sidoo kale degmada Caynabo oo halkii ugu xigtay ahayd iyadana waxaad ogeydeen sidina looga soo dhaweeyay iyo in maayirkii iyo maayir ku-xigeenkii degmada Caynaba iyaguna ay ku soo biireen xisbiga kulmiye dhanka kale waxaad ogeydeen gobolka Togdheer caasimadiisa Burco maayirkii iyo maayir ku-xigeenkii inay iyaguna ku soo biireen xisbiga kulmiye soo guul maaha guul weyn weeye dhanka kale waxaad arkayseen sidina loogu soo dhaweeyay shalay magaalada Ceelgaabo ee rag iyo dumar aan loo kala hadhin aad iyo aad baan dhammaantood ugu mahadnaqaynaa laakiin hadbahaad kicii degmada Sheekh way ismuujisay degmada Sheekh way ismuujisay rag iyo dumarba halka yihiin horena waa loo ogaa waanu idinka mahadnaqaynaa waa la idin ogahay waxaad tihiin hooyadii xisbiga kulmiye waxaad tihiin hooyadii Somaliland waxaad tihiin hooyadii iyo hoygii cilmiga iyo aqoonta waxaad tihiin caasimadii ugu horeysay ee Somaliland waxaad tihiin wax kasta oo wanaagsan bay degmadani ku sifowday waxaanu leenahay oo idin sheegaynaa haddaynu nahay axsaabta qaranka ee tartamaysa kulmiye wadani iyo cid annagu mar walba waxaanu idhaahnaa wadad walaaloo tartamaya laakiin marka qaarkood hadalla qadafa hadalla qoona hadalla ceeba hadalla aan wanaagsanayn ayaa ka soo yeedhay mas'uuliyiinta axsaabta kale gaar ahaan xisbiga wadani oo marka qaarkood aad sooranaysa malaha waxay u hadlayaan hadalkoodu waa si ka duwan hadal qof mas'uula waanu ka xunahay hadallada qaarkood in marka qaarkood xitaa madaxweynaha qaranka waxyaabaha aanu ku sifoobin ay ku sifeeyaan waxaan leenahay in lam tastaxyi fasnac maa shi'ta qofku hadduu xishoon waayo wuxuu doono ayuu ku hadlaa annaga afkayaga maaha inaanu mas'uuliyiin xisbi qaran oo walaalada tartan ku jira inaanu ku sheegno akhlaaqad xumo inaanu ku sheegno dambiilayaal inaanu ku sheegno dadaan fiicnayn afkayaga maaha laakiin waxaanu leenahay waxay iyagu ku sheegaan mas'uuliyiinta qaranka madaxweynuhu ugu horeeyo ugu sarreeyo waxay ku sheegaan iyagaa ku sifoobaya ha ogaadaan sifaadkaasi waxay noqonaysaa sifaad ayagu ku sifoobaan xisbiga kulmiye inaga waxa inaga xaaraana oo aynaan marnaba samaynayn waxa ay sameeyaan dad aan wanaagsanayn cay qabiil la caayo cay dumar la caayo cay rag la caayo cay ummad la caayo waxaasoo dhami afkeenna maaha afkii caytamina wuxuu ku yaallaa waa qofkii yidhi buu ku yaallaa caydaasina qofkaasubay ku noqotaa dembigaasi qofkaasubuu ku noqdaa qofkan kale waxba yeeli maayo xaqiiqdu taa weeye laakiin waxaan leenahay qofka sidaa u dhaqmaya waa qof ka sii quus ah tartanka uu gelayo oo aan geli karayn oo afkiisa ceeb iyo cay iyo dagaal uu ku jiro waa dagaal hortii oo uu qofkaasi kalsooni darro codka bulshada uu qabo dabadeedna aflagaado iyo xumaan inuu kursiga ku gaadhayo u malaynayo laguma gaadho taa waad ogtihiin kulmiye laba jeer ayuu ku guulaystay doorashada madaxweynaha mar saddexaadna dirqi baa lagaga badiyey markan afraadna iminka isagaa ku guulaysanaya hubaal weeye waxaana hubaal ka dhigaya ilaahay subxaana wa tacaala oynu ku kalsoonnahay iyo shacbiga aynu arkayno oo codkooda aya siinaya yaad codkiina siinaysaan codka miyaa lagu bixiyaa ceeb iyo cayl iyo xumaan qof caytama miyaa cod la siiyaa qof hablaha caaya miyaa cod la siiyaa qof ragga caaya miyaa cod la siiyaa qof qabaa'il caaya miyaa cod la siiyaa qof qabaa'ilka isku dira miyaa cod la siiyaa intuba way naga xaaraan inagu waxaan leenahay reer Somaliland dhammaan waa dad walaalaa weeye hase yeeshee reerka geediga runta ah ee wanaagsan qofka raraya ee raray waa la ogyahay qofka hagardaamada iyo kuwa la dhintana waa la ogyahay dadkuna ildheer bay wax ku arkayaan waxay arkayaan halka laga soo hayaamay waxay arkayaan halka loo socdo waxay arkayaan halka la joogo codkooduna marna qaldami maayo soo sidaa maaha yaan siinaynaa codkeenna iyaynu madaxweyne u dooranaynaa
يين مدحوينه ودوننا هذا عدك الشعب يقول كفر يا مدحوينه موسى صومها dadka xaqxaganayana waa dadkii laga badiyay Soomaha dadka xaqxaganaya soo dadkii laga badiyay ma deemkana waa laga badin doonaa Soomaha inaga tartan xalaal ay noo balana reer sheekh mar kale waan salaamayna hoyga aqoonta hoyga cilmiga hoyga Soomaaliland hoyga dhakhtarada waaweyn hoyga xisbiga kulmiye mar kale waan salaamayna wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh